عن حاليته هولقلب بلارن وعيدمada xoogga dalka Soomaaliyeed cutubyo ka tirsan iyo ciidamada AMISOM ay ka fuliyeen deegaano kala duwan oo gobolada Shabeellada Dhexe, Shabeellada Hoose gaar ahaan Mubaarak Torotoro Farsooley Jannaale iyo meelo kala duwan waxa laga soo hooyo guulo aad u balbalaaran Mubaarak oo kaliya xalayta ciidamadeena galay cutubka afraad kumandanab iyo cutubka labaad dugsiga tababarka General Gordon waxay ka fuliyeen hawlgal aad u ballaaran oo lagu guuleystay hawlgalkaas waxa lagu burburiyay raadiyo FM oo ashabaab ay ku lahaayeen tuulada Mubaarak waxa lagu burburiyay laba baabuur oo diyaarsan oo qaraxyo ah oo markaas dhaqaaq diyaar u soo laga yaabo inay magaalada madaxda u soo socdeen waxa laga helay bakhaar buuxa oo ashyaada qaraxda ay ka buuxdo sida baaruudda baasuukaha baaruudyada kala duwan fuyuusyada fiilooyinka batariyada simikaarada iyo wixii lamid ah yaa iyagana gacanta lagu dhigay labadii baabuur saakayto ciidamadu way qarxiyeen waa gubeen isla Mubaarak bay ku gubeen ashyaadii kalena maanta la gubayaa waxa kale halkaas laga helay rasaas badan oo qoriga BKM-ka iyo baasuukaha tuute jawaanada ii sheeg difaaca la dhigto iyo shidaal badan oo ciidankan isticmaali doono yaa laga qaniimaystay khasaaro badanna uu ku dhacay cadawga haddana baacsi baa lagu sii wadaa isla maantay waxaad hawlgalka iyo xabadu ka socotaa deegaanka Torotoro iyo Farsooley iyo Jannaale wixii khasaaro oo intaas ka dambeeya iyo wixii warbixin dib aan kaga soo gudbin doonaa intaana waa intii hordhaca ahayd oo aan siinay dagaalkaas wuxuu bilaabmay xalayta 11kii habeenimo ama shantii habeenimo oo dambe oo salaada subax waqtigeedii iyo dagaalkaas u dhacay guul ballaaran baa laga gaaray ciidamada kalena warbixintooda aan sugaynaa wixii cadawga gaara iyo wixii anagana gaara waa inuu soo gudbin doonaa insha Allah ta'ala hawlgalladiina si ballaaran oo dhameystiran bay uga socdaan gobolka Shabeellada Hoose insha Allah gobolka kalena ku xijin doonaa waana ku guuleysan doonaa insha Allah ta'ala cadawga Soomaaliyeedna waa ka saari doonaa mantiqada deegaanada ay ku jiraan